markaan u soo baxayna wuxuu igu yiri mobil ma sidataa aan ku yiri maya mobil ma lihi mobil bu markaa ay soo iibiyey ninka mobil ku soo iibiyey ha mise jir baad markaa waan yaraa 12 jir baan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mobil bu ii soo iibiyey mobil markuu ii soo iibiyey wuxuu yiri mobilka hay soo qarso haye baan ku yiri lacag buu ii siiyaa markaa maalinta dambe wuxuu igu yiri uu soo wacay deetana markaas igu yiri haye xabadiya jooga ii waran Ibrahim joogta ha guriga joogta marka waa gabadhu la sheegtay gabadhii weydiinay Ibrahim joogta ha waxa way joogta waan idin imanayaa waan ku xiisaynaa sabab la soco adigu wuxuu igu yiri maalinta dambe wuxuu igu yiri soo bixi kartaayo waxaan ku xagee yiri kafeteriga meel adigu kulay markaa ha waxaan la sheekaystaa gabadha guriga joogta ha soo bixi kartaa halkii reer adkeeg iyo sharaab iyo waxa noogu soo iibin jirtay ha waan soo baxay waan u tagay أنا ماشي في يقول شراب عب أو يبون يوح محلية هي كان يوح وحالتها أنا فردي وصولي ده وح أنا أكيد إنه الرب لكن أنا دوانيرها وحلي وح وندريبيا إنه ممكن يجي حلي لكن وح هذا لا أكل أنا نسدح سنين هي إيه ورسلت هي يوسف سلام يقول بقى ورئيسنا يوم أي حبرتي يوم لا يدخل كسبح وقت way igu soo leexdeen gurigii baa layla tegay horta siday tahay ayaa la ii tumay waa gartaa bahal silsiladana waa laygu xiray qab baa lagu siiyey haa habartaas meesha saray maadaama uu 12 jira ugaasiinta telefoon la siiyey meel la tegay nin ay ku aragtay ay dishay meesha saray soo meesha saray horta marka horta habartaas way saxsanay ku soo ogaaso marka waxaa dhacday silsiladii ayaa la igu xulay haba la igu xulay garaacistu joogta ii noqotay kasii socdana way sii laadaa kasoo socdana way sii laadaa caruurtooda baalka ay baxdishay caruurtooda baa i dilaysaa timaha cidiga furfurtaa ma jirto suuliga silsiladan la galaa adigu xoogay أعوذ بالله way adkaatay noloshii أنت سواء قلت قفك هذا دليل لكن سلسلة واحد سلسلة ما بلغوا بحرين ها عملت قدري سحتها way dilaan waliba wiil baa iigu daran wiilka weyn baa iigu daran سواء قوة هاي maalintii habartay way maqan tahay oo dahab la suuqay fadhiisataa laakiin xataa marmar baan ciidimo cuntaysiin oo cuntadooda waxooda dhan way iska cunaan way karsadaan way bahalkiistaan aniga way iska ka ilaawaan cunto la ima keeno ilmaha gabadh yar baa jirta oo ilaa markaas qiyaastii 5 jir 4 jir 5 jir meelahaasa oo markay si inay cunto ku soo ridato haday doonto ila timaado hoo igu tiraahda waa gartay wiilka weyn baxoogii dila wiilka kale laakiin inuu ciyaar laad kaga kaysii dhufta mooyaane oo si dee qof lagu ciyaarayo adigu bad halkaas ka taala wala si yar laada la iskaga dhaqaaqa oo kale mooyaane si xooga iyo midil markaa subhanallah gabadha ku xigta cuntada reerkeeda haysa cuntada samaysaa ima xasuusato laakiin markaa habar joogto quraacda subaxii waa la siiyaa waa gartay waxa dhacday markaa anoo xaaladii ku jira ayaa waxa dhacday wiilka weyn ee habaryar ee markasta intila inuu kufsaday uu kufsaday waliba maalin duhura dadkoo dhan way kala maqan yihiin labada yaryar qol kale ku jireen labada waaweyn way maqnaayeen لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سوى مسجد وأنا وين إيجا وين دانيلا ولا شا مركا قياستي تدبيو تبنشر ستديو تبنشر ويا
inaad ku xidhan tahay ها لا maalintii si laygu xidhay waan ku xidhana hay intuu dilay oo ay kufsaday ayuu suu doona iga yeelay waxaa dhacday markaa maqrib hortiyar bay habareer timaaday marka gabadhi yarayd iyo wiil baa u yar gabadha kor uga yar weyn hooyo walaal wuu dilay yuu dilay ugaasuu dilay subxaan allah hay marka soo yar kacay aan si markaa way malaha way kaa yar dhahday aad dee ku tiraah waxaana wiigu sameeyey hay markaasaa anoo ooyayo oo ilaahay xaalkayga og yahay ayaanu soo kor istaagay mase gudin maxaa ku helay markaasaan ku uri wuu ii dilay wax kastana markaan sidii hadalkii labaad bay igu tiri waad istaashaa eega hor dhaqaa waa istaashaa haa waana habarta arrimu hooyada la dhalatay hooyadii da'dii ka weyneed weeyaan waa sheekadii ugu horreysay habarar xun aan maqlo weli hore ma u maqashay habarar xun idinku walaa markii ugu horreysay hay marka waxay ku tiri ga hor dhaqaa gudihii baan galay furash baan ku jiibsaday go-o baan huwaday waan ooyey markaa hay intuu ii yimi oo labada lugood oo saa isku kaguud saaran oo sidaa isku kuusayo iigu istaagay buu igu car joogde laa xawla walaa quwata illa billah isagaa kursi aan jabayaba waa garta maalintii dambe waxaa intii ka dambeeyey kursiga ka dambeeyey maalin kasta sidii nin iyo naag isqabo oo kale ayuu isticmaalaa markaa yaa thank you sidii nin iyo naag isqabo oo kale laa xawla walaa quwata illa billahi alcali alcadiim soomaalida waxaa la digayo xasabii kowa subxaan allah hay marka sidii caadiga ahayd duhur kasta haddii maaragtay wiilka weyn markasta uu iska baxaa wiilasha markay xilligaa jiraan kubadday aad u jecel yihiin sidaa markuu qadayo wuu baxaa laba carruurina waa la seexiyaa gabadhana wiil waxbuu u dirsadaa amba lacag buu dhiibay adigu wuxuun bay ku baxdaa deetana markay sidaa u baxdo ayuu halkan iga yimaada dharkayga siiba surwaalka iga bixiyaa wuxuu doonay u sameeyaa habareer markay timaado waxaan ku dhadaa habareere silsilada iga fur habareere ma qubaysan habareere sidin iga daayo silsilada iga fur waxay igu tiraahdaa haa niman baad rabtay de nimankaada fadhida darajada baad doonaysaa anigu waan ku fahansanaha bariiso lagaa furi maayo silsilada waad ku dul dhimantahay maalintii dambe waan diiday bixi surwaalka ma bixinaya baan ku yidhi wuxuu igu yidhi adigu wuu dilay markaas waan isdiidsiiyey laad buu igu dhuftay labada ilkooda wuu iga soo dhaceen markaa labada fool subxaan allah hay labada fool markay iga soo dhaceen waan qayliyey igamuu nixine hawshiisii wuu watay habareer baa timi silsiladii bay iga furtay war waad niceebaysa war maxaa sidaa ugu gasho war maxaylkaa kusoo dilaayi gaarkugu maya dhakhtarkaan ku geynaya markaan dhakhtarka ku geeyo markaan dhakhtarka ku geeyo waxaad samaynaysaa car dheh waan dhacay dhee afkaan kugu dhuftay waan ku fadhay isugugaasi dad badan baa oohin soo diray oohinta leefkan nagaga xidhaa waxaan umalaya asxaab badan oo filow noo ahayn baa caawina daawanayso isugu hal mar waxaan xidhaya dadka filowga inoo abisayna daawan kara markaas dad badanaa soo diraa inta filowga inoo abisayna daawan karta hawada ka hoos isugu
سؤال واسع marka qaybnaya dhakhtarka ku geeyay silsilada ka fur orada si ugu biiso dhakhtarka baa la geeyay ma yorta dhakhtarka maalinka ilkaha dhakhtarka lebiga Cabdiqaadir oo ku soo sheeka dhaafay ilkihii wax silsilada iga furtay soo qubisay butri ilkihii way eegtay labadaas way dhaceen kuwa kala caadi bay ahaayeen waxay ku tiri afkaan ilko ku dhuftay hadaad qof ku tiraahdid maxaa ma ugu oranaya ku cili wariya aradka xeeyo silsiladeedii ku cili silsiladii baa sidii la igu celiyay markaa habari markaan waan bariyay habareeda silsilada ay ugu xidhan habareeda oo ku bariyay habareeda meel wallahi uma baxayo cidna uma sheegayo albaabka ma istaagayo qolka iyo guriga dhexdiisa xataa albaabka qof يعني كم فريو خبري سلسلة يقول علم كانوا وحن كبقيا كل يوم وحن وطول كي يقول سمعنا يوم مركز تدخل كلا سحسين لحظة من أكب الباب الليست ويران كعرتي مركز يقول ما تشرتين عن بحه وقرتها الباب يقول مركز يقول ما تشرتين وين عن بحه أو محاكو لحظة عن ميل تقو waxay ku jirtay kaliya inaan silsilada la igu xirin awilkan aan ka badbaado yani qolban xataa hoosta ka soo xiran karaa haddii silsilada la iga furo laakiin haddaan silsilada ku xiranahay dee qof maxbuusa baan ahay meel la u bixi karayo waan bariyay habaryare lugahan ku qabsanaya habaryare wallahi meel looma socdo habaryare wallahi meel halkaasuu midda kale soo taaganya guriga kama dhex baxo adigu markuu arkayna habar ii soo yar calool jilaacaysa isagaa bay jidin silsilada qabiisi furiina wuxuu ku yidhi hooyo anaa haynaya markay sulu baahantay sidaan uga furo wallaahi xataa haddana sulu baahana igama furo maqribka markay habaryar halkaa kasoo gasho waan ku radaa habaryara iga fur suuligaa rabaa awood melina isaga ku rada suuli baan rabaa macamiil buu iga dhigtay halkii baan wiilkeeda ugu xidhnaa intaas oo dhan waan xanuustay bilaa dhiig baan noqday bilaa awood baan noqday cunto aroortii tay siisiisa ay ugu dambaysaa marmar ay hambeeyaan carruurta yaryar ku dhahda cuntadaas iniga ku jirta iisoo qaba mooyaane cunto ay igu talagaleen intiisa ay soo hordhigaan ma cuno labada carruur ee yaryar baa saa iigu wareego maaragtay wax iyagu loo soo rido marmar ila soo ag fadhiisto aan marmar ka cunaa hataa cabdiqaadir waan xanuustay waa miyir beelay bilaa dhiig baa noqday bilaa awood dhakhtarka la geeyey dhakhtarka haddii la geeyey waxaa miyirsadaan oo dhakhtarka joogaa miyirsaday ay habartay halkaasoo kale sariir yar oo dhakhtarka aan ku jiifumeeyo sariir kale halkaas soo fadhido marka islaan yar oo kale la sheekaysanaysaa waxay leedahay wayna ceebaysay bal inta leeg tahay ur leedahay day laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcaliim ura haa indhahan saa u yar kala qaaday maqalkii hadalkii uur bay leedahay iyo indhahaygan saa u kala qaadayba haddana dib isku qabsaday indhihii baan dib uga qarsaday waan dhegaystay uur bay leedahay ilaahay ku siiqaan ilaa isku dhimo ilaahay waxaan ku bari inaad soo kala bixin bal intay laag tahay day bal iyada belaysan baa soo kaxeey nima baan ka soo kaxeey waxaasoo dhan bay leedahay filiboon iyo waxbaa igu xidhnaa wixii markay dhammaadeen iska bixi kartiin baa layidhi dawooyinka iyo fitamiinadaana siiya sidaa markaan kusoo baxnay balaayo ku siisantay balaayo dawo ku siisantay bale fitamiin ku siisantay dhimo ilaahay baan kuu bariyay ilaahay wadka kuugu soo dhaqsay wixiiba way tuurtuurtaa balaayo ku siisantay bay tiri waxan haddaan saan ku moodayay maanaha ku kaxayn lahaaba halkaasaad ku yarbeelaad ku dhiman lahayd ayaa
yaa ku balanbeliyey oo aya ninka saan kuu galay saan ku lahaa maryare haddaan kuu sheego amay dishaa markaasay u tiri ii sheeg ninka maanta kaa soo kaxeeyeyba ma waxa aniga weligeen inima taaban baan ku lahaa maryare eeg beentay ku sheekaynayso maya wax walba waan kuu sheegay laakiin hay dilin habarare wiilkaaga hebel base ay ku sameeyey ninkaan maxaa ku samayn lahayd gabadha saa ku sameeyey caawa hadduu inaga soo bixi lahaa wala caawa gogosan lahaa ninkaas intay saa egtay bitir aamus gurigii baan tagnay gurigii markaan saa u gallay ayaano awood iyo intaan toonnahayn ilay xaaladeed og yahay ay i dishay ay tir haddaad soo qaadid wiilkayga iska jir waxaan ku dhaha barar ma soo qaaday laakiin way dilaa duhur kasta way dilaa duhur kasta way gursadaa duhur kasta halkaasuu dharkayga ka bixiyaa duhur kasta silsilada intay igu xidhan tahay waxaasuu igu sameeya waan ku baryaa barar silsiladaha igu xidhin wiilkaagana igala hadal waxaad ku ana idima sheegayo ana wiilkaaga igala hadal intaa keliya ii qabtaa markaana waa idin qarinayaa wiilkaagana waxba ma ka sheegayo naanagu naqari kumaanu odhan anagu waxba kumaanu samayn wiilkayga haafur bayna waasee ka daabada way karcaan markaas subxaan allah waxaan kul waxaa sheegayaa ma jirto haddaadan awoodin inaad hooyada ii dirto habaryare silsiladaha igu xidhin wiilka uu duur kasta wax kasta igu sameeyaay inantii yareed ba cabdiqaadir oo soo bootay ee dhowr kal sano jirtay hooyo wuu dilaa hooyo walaalo wuu dilaa hooyo walaalo wuu ku joogsadaa bay ku tiri marka gabadhi way iska aragtaa waxyaalaha inay xaqiiqay wiilkeedu waxyaala badan uu sameeyey wax markaa waxay samaysay dharkaygii waxaygaba isoo ururisay hooyadaa baan kuu dirayaa bay ku tiri gurigayga sii joogi maysid carruurtayda iyo gabdhahayga iyo ciyaalkaygaad iga balaynaysaa balaayaan soo haraystay baa tahay dansaa ku moodayo kuma soo kaxaysteen ilaahay inkaar kugu rid dharkii wixiiba ii diyaarisay aniga i caayaysaa gaari bay saartay hooyada bay ii dirtay markaa haa markii gaarigii la ii saaray hooyaday i soo dejisay hooyaday way naxday markaa caynada aan u ekahay dee gabar yaro waxaan lahaa buurana hooyaday la joogto si wacan loo soo koriyayo xooggeeda iyo say u shaqaysaad yaabis waxaan u tego hooyaday iyadoo labada indhood ay god iga soo jeedaan madowna ay yihiin habeen oo dhan inta dadku hurdo beerkaan ka ooyaya hataa kor ma ooyi kari jirin caatana intaasaan leekaha adugu waan sii siqiiray dib baa waxaa ugu noqday 8 jir meelahaas oo kale hooyada markaa way naxday hooyo maxaa ku helay hooyo maxaa ku helay hooyo maxaa kugu dhacay miyaad soo baxsatay wayba la soo hadashay naa waxaan kuu sheegaa fataaladan aad dashay suuqayn ka soo silsilad baan ku xidhay suuqaan ay iga gashay suuqaan ka keenay haddana gabadhaada way bacsan tahay way balbalsan tahay daw tasho gabadhaada warayso maxaa ku helay hooyo maxaa ku helay wax walba ii sheeg marka anigu waan ogoyayaa wax intaasoo dhan dee ii naxariista maan arag intaasoo bilood baan bilaa naxariis meelaha ku joogay waxaan ku idhi hooyo hal marna xataa maxaad ii soo eegi weyday miyaanan inantaada ahayn hooyo intaasoo dhan silsilad baan ku xidhnaa maalin kasta silsiladda intaan ku xidhnaa maalin kasta wiilkeedu maalin kasta ii gusanayay dhibaatadan haddaba aan joogin dad badan haysataa wallahi soomaalida dhibaato badan isku haysata ilaahay ha soo hadeeyo hooyo
hooyaday way naxday way carartay dhakhtarkii bay geysay hooyaday intii aan ka dhalayay ee uurkii ka soo weynaanayay dhinacna way iga qarinaysay aabahay bay dhinac ka qarinaysay dhinacna way ooyeysay habeen iyo maalin way ooyi jirtay hooyaday markaa haddeer ma gabadh weyn oo khaldantay waxay odhan jirtay hooyaday hadaladeeda waxaa ka mid ahaa haddeer gabadhayda haddaan idhaahdo waa gabadh weyn oo way khaldantay ama iyada nafteeda ku ciyaartay gabadhaydu qaangaadh maaha maxaan haddeer ku hadlayaa maxaan idhaahdaa maanaa khaldan ma walaashay baa khaldan ma gabadhayda yar baa khaldan ee saqiirkaa ee anigu iska dhiibay hooyaday way oydaa hooyo habeen iyo maalinkaasi ka ooyeysaa leedahay maanta inantayda yar khaladkeeda anaa saaray oo u bixiyey laakiin walaashay iga weyn ee maxaan ku dhahdaa ay waan u diidi kari waaye hooyaday marba waxbay ii siisaa mar nabarad bay ii dawaysaa timihii oo injir iga gashay way iga xiirtay aniga cunto afkaa ma saaro cunto dhan ma cuni karayo cuntada o dhan waa naxay markaan cuntada cuno xoogay maaragtay isku khasba hooyo igu khasabto sidii wax maaragtay waxaan noqon jiray bilaa dhiig baan ahay bila awoodoo kala xaaladii markaa hooyadii baa waxay kusoo siiyaaday xaalad aad u adag 9 biloodaa uurka lahaa aduu meelaha waxaan u imbi hooyadii anoo 2 bilooda intaan uurka lahaa oo dhan hooyadii waa ooyeysay habeen iyo maalin habeenkii dambe fool bay qabatay hooyo soo kiciyo hooyo halkan ay xanuunaysa hooyo halkan kale ay xanuunaysa hooyo halkan kale haddana ay xanuunaysa say telefoon baa haysa waxba ma kale oga taliya dhar bay alaab bac yar bay alaab iigu soo gurtayo wadaday taxi ka soo kaxaysay taxigii waan raacnay dhakhtarkii geysay markaa dhakhtarkii markii geysay oo dhakhtarkii aan cabaar la baarbaaray awood ay ku dhasho si normal uma dhali karto awoodna ma haysato marka waan qalanaa marka waxaad la kaadaydaan ilmahan aabihii iyo iyada aabaheed ilmaha sida loo saxeexo qof walba qofkiisu saxeexanaya hooyo waxay tiri tayar aabaheed waddanka ma joogo wuu maqan yahay walaalkeed baa laakiin jooga walaalkeed baa saxeexaya labadaba lagu qalaya marka haa si caadi ma ku dhali karta baa leeyihi subxaan allah marka hore waa si baa weli markaad ma 12 mise 13 gashay adigu 13 dee xaafadda dhowrkii bilood aan joogay intii hore magaranaysa xaafadda eeda joogay adigu sanad anigu 13 baan cadir buuxiyey 13 baan ahay 14 laga yaabaa inaan kala marka laakiin 13 baan ahay sida saxda marka waxaa dhacday fooshii oo dhan xanuunkii oo dhan baa layga biiyey haddii xanuunkii oo dhan layga baabiiyey qalin baa la diyaariyey walaalkii baa loo yeedhay walaalkii wuxuu dhahdaa yaa maxaa tiri hooyo gabadha yar yacniba buraa ka soo baxday maxaa ku dhacay hooyo way ooyeysaa dadkoo dhan maaragtay dhakhtarku wuu yaaban yahay inankiiba uu ku yidhi anaa wuxuu soo sheegayaa isdejiya dhakhtarkii wuu iska fahmayaa moogtahay wax meesha ka jira walaalkii baa qola la galay wax walba waa lasoo baahsiyey markaas subxaan allah wuu yaabay marka ilaah waa lagu haa ilaah waa lagu keenay ya rab ilaah waa lagu keenay ilaah waa hablaha noo astay oo xanuun wallah subxaan marka waxaa dhacday
walaalkii adigu uu saxeexay waa lay qalay markaa markii lay qalay wiil baa layga soo saaray haddaba urbal waa la qarin karaa cabdiqaadiro wax kastana waa la qarin karaa oo aaba waa laga qarin karaa laakiin ilmo nool oo ooyaya ma la qarin karaa hooyo marka waxay rabtaa inay xitaa aaba ka qariso hooyo habeena dhaweeyo saxnadi bal odayga maxaa xaggaanka uga bilaabaa khaladka anigaana gabadhaydii bixiyey alla yaa nafta iga saara alla ilaa umaytaydii noqoto alla yaa meesha iga kaxeeya alla indha xumadan yaa iga kaxeeya taasi habeen iyo maalinku ooyeysaa gurigii baa lay geeyey waxay tiri wiilkii walaalkii waa aamusan yeeshib maalintiiba hadal ugu dambeysay marka wax loo sheego wax loo diro uu dhaqaaqa uu keenaya laakiin wax hadala gurigii maalintiiba waxaa ugu dambeysay suuqu aado masaajidku aadaa uu soo tukadaa uu soo noqdaa saas buu fikirayaa waxaan inaan ilaahay hableena xukuma keenay laakiin nin walaashi wax ku dhican baa garan karaa xanuun waayo ilaahayna uma keenay laakiin hablahana ilaahay kuma keeno hablo waa cawra wey rag hablaha la ilaaliyo hablaha la dhegeysto ha la taliyo ha loo naxariisto dumarka haddaan loo naxariisan waxba ma hagaageen hablo idinkuna habeen iyo maalinba 24 saacadood dhegeystaa sheekooyinka iyo qaar ka daran be wax ku qaata ilaahay hadda astureyn kara walaalkay hooyo way u sheegtay in habarwadaagay waxa uu sameeyey carruurtii habartay dhashay hooyaday markaa waxay garhada habarta waxay tiri walaalo wixii dhacay way dhaceen wiil baa idiin dhashay ilaahay aynu ka baqano aniga ceebta carruurtaada ku dhacda waa ceebtayda kuwan ceebta ku dhacdana waa ceebta gurigaaga ayayna ceebtaada ku soo gaadhay labada carruur ee habarwadaagga aan isku doonno aan isku asturno hooyaa tiri haa hooya habarartii garacda ku tirsada waxay tirnaa waxaan kuu sheegaa aniga gurigayga garac joogi maayo adugu haddaad adigu garaci u ogolaateen uu joogo aniga gurigayga wax garac oo cilmo joogayo iimana soo gelayo mana aanu dhalan waxaana ma naqaano gabadhaaga weydii wixii ka dhalay way garanaysaa mise way kala garan la'da waxay ku tiri walaal ciyaalkaaga gabadhaada saa kuma odhan karo maanta gabadhaada iyo gabadheedu waa isku mid laakiin adigu waad kala fogaysatay gabadhaydan hadaa saa u galay aakhiran adaa lagu raacaa ilaahay baan kugu reebay haddii gabadhaa yar oo aan maanta garbaheed malaa'ig saarnayn anigu aan mas-uulka ka adnaad mas-uulka ka dee aan ku siiyey ee ehelnimo walaalnimo kuu siiyey aad sidaa leedahay maantana oo aadan ka jixin oo aadan ka dhidhiyin wixii ku dhacay ood kuwaagii garabka saartay weliba khaladka ka galay ee qaangaarkahay waa weynaaday ilaahay baan kugu reebay ilaahay baan kugu xawlay ilaahay baan kaaga dacwooday habarta waxaan ku tilmaamaya gabadhaas habarta idii ilmaheeda kule nafsiga helay waa maqli doonaa hooyada telefoonka way dhirtay intaa inka badan ma qarin karo hooyo wiilkeedii bay markaa ku leedahay walaalkii weyna hooyo intaa inka badan aaba kama qarin karo dhibku na soo wada gaaray waan u sheeginaa laakiin hooyo waan ku baryay markaan u sheegay aabaha ila joogo garabkayga ahaw wuxuu yidhi aabbo inta hooyo waa yahay waa soo noqonaya aabba haddana ha u sheegin tayarna way qalan tahay iyadii baaba iska dhibaataysan markaa aynu u yarkaadino waa yahay walaalkay cabdiqaadir uu baxay naga tegey habeen dhan baanu weynay meel aliyo meel u qabtay waa weynay walaalkay wuxuu aaday magaaladii habareertay deganayd dowray buu qaatay
isugu mariyay caloosha يا بسم الله الرحمن الرحيم walaalkay wuu baxay intaan aabe loo sheegin wiilkii wuu soo dilay doorey buuna qaatay guriga agtiisu ugu dhuuntay calooshu saa isugu wareejiyey gebigiisiiba waana habar wadaagi والله دي إسلام واحد الغفر حماه لكن مرات قروة طلب حلال بديكس يا هاي سبحان الله walaalkay habeenkii markuu naga baxay oo intaa soo sameeyey waxaa dhacday markaa uu soo noqday maalinta dambe duurkeedib noo yimi wuxuu yidhi hooyo haddana aabbe u sheegi karnaa haddaan dhintana gerideed waa xalaal caawa وأنا صبح wuu soo baxsaday wuxuu yidhi iminka hataa waa lay xiri karaa oo waa lay dili karaa wax aan dan ka leeyahay ma jirto walaashayna waanu soo aaray naftaana ka soo jiray ilaa ay ka baxasay hooyo xataa kama soo tegin bulan لا حول ولا قوة إلا بالله هاي والله هو عيشون الناس قالوا عيشون عن وقت بعد الرق عيد عذاب كدوري هاي baabkii markaa waa la xiray isagoo gurigii sidii u dhex fadhiya askari timaaday waa la xiray aabbahay arrintii buu ogaaday hooyo markaa way carartay anigii bay qaaday guri koornaha magaalada oo gabadh saaxiibadeeda leedahay bay geysay marka waxaan ku ihi hooyo ha iga tegin hooyo ha iga tegin waxay tiri hooyo xaaladda aabbaa raba inaan soo dejiyo iyo xaaladda guriga maanta ta dhacday waxaan dareemayaa dee kugu dhimay oo kaa dhimay inay tahay marka waad qalan tahay adigu khalad ma lihid hooyaday mar walba waxay ku tiraahdaa adigu khalad ma lihid anaa khalad kale ilmi yar ayaa naga gurigaasina la geeyey hooyo waa baxday arrintii aabbaa ogaaday wiilkii waa la xiray kii kale waa la aasay adigu arrintii si arrin dhaqameed bay kusoo dhammaatay walaalkiina waa la soo daayey magmahna la kala qaatay la kala saxeexday laakiin hooyaday iyo habaryartay reerkaa iyo reerkayga oo kala dhammaatay walaalkay muddo xidhnaa 6 bilood ku dhadhow mag baa la kala qaatay laba magaalana waan kala degnin xoogay kala fog aniga gurigii baa laygu soo celiyey xaafadii qur-aan baa la saaray aaba qur-aan buna wada saaray wuxuu yidhi ilmaheenana innagaa iska korsanana wixii dhacayna way dhaceen arrintan halkaa nagaga soo afjara sidii baana arrintii lagu soo afjaray waxaa dhacday markaa anigii markaan muddo 2 sano aan halkii ku noolaa aan gurigayga joogay maamadii waxaa ku dhacday barkad bay gurigeedu leedahay barkad biyaha lagu shubto markaas wiilkii u yaraa baa kaga dhacay tiirada qoran jiray cuntada ii kan keeni jirtay marka silsiladaan ku xidhnaan jiray barkada wiilkii waa ku dhacay nateer markay qaylisay istiri ka soo qabo way kaga daba dhacday labadii caruur waxaa la ogaaday fiidkii ayagoo biyihii ka dhargay fuuray oo barkada dul hahaabay oo la raadsi kasta loo raadiyey baa barkadii aroortii weliba habeenkii lama arag aroortii baa la arkay iyadoo la isleeyay labada caruur waa la xaday nafsiga ka warama ilaahay baad ku gaariyay nafsiga gasha ubadkaagu keliya hadduu adiga xitaa ku dhibi waayo ubadkaaga noloshaada faamilkaaga waxaa dhacday markaa aniga markaa ilmahayga wuu weynaaday hooyaday baa ii korisay anigu gurigii baa sidii u joogaa caruurtaydii waxayga waa wada joognaa marka wiil walaalkii ay saaxiib yihiin oo maraykanka yimid baa walaalkii soo raaraaci jiray
wiilka walaalkii wuxuu ku walaal gabadhiina ayaan ka helay maadaama saaxiibkay tahay gabadha waa shukaansan karaa laakiin waxaan sidhi saaxiibka inaad gabadhooda daba martid ka shukaasatid waa yar ceeb ma isiin kartaa haddii walaashaa ay ogolaato ninkaas in hadhow nagu xumaan waddo fiican buu sameeyey waa la weydiiyaa saaxiibka inanteeda waa keeni kartaa gabadha iyada kuma siin karo aduu lasoo sheekayso xaaladeedu soo ogow anaga xaalad xun baa nagu dhacday ma haysaa horta storygayga wuxuu waa hayaa wuxuu haddaba gabadhi wadaas lasoo sheekayso haddii isfahantaan iyo kaada waa ku siinayahay malaha wuxuu maqlay walaalka inuu nin hore kaw kaga siiyo maqlay uu cabsanaya cabsi waa ogeysi inan kasta walaalkeen musaa difaaci laha oo inala dhashay cabsi waddanka dhan noqon laha kaaq baa la isku sheegala libaaxa wuxuu yidhi walaashaa iyadoo yar in khalad laga geli waa ogahay haddana sidii unba u yar tahay way yar tahay aniguna waa ka helay wax kastina waa ogahay haddana sida ay tahay sidaasan ku weydiistay adigu usoo fasaxay inuu ila sheekaysto wiilkii waa wada sheekaysanay hooyadii xaafadda uu sheegay wuxuu yidhi wiilkaasaa gabadhay weydiistay haddii ay ogolaato hooyo waan siinanaa haddaynan ogolaanin joyska iyada iskale maasha allah kuleen isagaa kula dhashay ninkaa gabadha la dhashay maxaa ku tilmaami leedahay ninkaa gabadha la dhashay ilaa hadda garab taagan joyska iyadaa iskalu taagan yahay markaa hooyo waxaad samaysaa wiilkaas markuu u yimaado gurigaa kula kulmo soo dhaweeya gabadh dambe oo bannaan loo sareeyo hooyaan arkin gabadh kasta maalinkay qaangaadho oo maaragtay ay u baahda inay nin la sheekaysato gurigooda ha ugu yimaado wiilkii sidiiba lagu soo dhaweeyey habeenku bilo ballamo hooyaan u sheegaa gurigu noogu yimaadaa aduu inankii waxaan ku uri habeen kasta wuxuu yidhi habeen kasta inaan gurigiina kugu yimaado anoo kula sheekaysanayo sidaan waan xishoonayaa waan reerkuna way ixtiraameen walaal inaan ku guursadaan anigu diyaar u ahay haddaad ii ogolaato waa ogolaaday hooyana waa kala tashtay walaalkiina waa kala tashtay wuxuu yidhi ninka nin badan baan saaxiib nahay waa nin dhalinyara waa nin wanaagsan haddaad adigu ogashahay waa nin wanaagsan anu saaxiibka iyo aqaana aduu ninkii sidii laygu guuriyey maasha allah ilaahay ku wanaagsan ka dhigay ilaahay ana xaalad jeexjeex war aamin dha ninkii waa guursaday wuxuu ii dhigay aroos maasha allah aroos iyada aroosyada ugu fiican ka mida habeenkii inankayga yar uu kaxeeyey suudkiisoo kale uu soo geliyey gacantuu soo qabsaday aad buu u yaraa laakiin wuu iisoo kaxeeyey gacantuu soo qabsaday markii habeenkii arooska la joogay la kala tegayey anuu aan daashka xidhanahay ay hooyo inanka yaraa damacda inay naga dhex qaado iyadu qaado wuxuu yidhi may ma raba inay in yar oo wara dareento intaa uu jirayba hooyadiisoo laabta kagamuu jirin haa haddana ma raba inaa laabta ka saaro ay dareento wiilkeedii macaawo ka fog yahay mas-uuliyadda iyada iga saaran ayaa wiilka yarna iga saaran nagamana kaxaynis maasha allah waa war maasha allah dhaha waa faarax luga baasto oo aad u wanaagsan caawa haddana xaaladaha saacadaha duwan u jeexjeexa ya maasha allah wiilkaygii yaraa isagaa laabtiisa ku seexiyey markii dadkii kala tageen gurigaygana la keenay guri shanqalo ii kariyey ii goglay inanka yaraa isagaa seexiyey halkii baan nolosheeda ku bilaabanay waxaa dhacday markaa in halkii anigu nolosheedu markii halkaa noogu bilaabatay ayaa waxaa ku dhacday islaantii habaradii ahayd la ii soo sheegay in wiilkii dhintay markii hore walaalkii dilay wiilkii kooxigii tahriib kaga dhintay kii kalena tahriib ku dhintay tii kalena waa tii ku dhimatay laba yaryar barkad bay ku dhaceen
wiilna waa kii anigay farax xumeeyey oo walaalkii dilay wiilka ka xigay ka hooseeyay yacni ka yaraa ayaa tahriib kaga dhintay. subxaanallah afar qof aa u dhintay nafsigaaga saas ma la odhan karaa haye marka gabadhna waa laga guursadayoo waxay degantay magaalada habartii marka gurigii waa ku madhay keligeed bay noqotay. subxaanallah marka waxaa ku dhacday dhiigkariya macaan baa yadna ku dhacay naxdintii wax ka xun male ilmahaagu markuu maaragtay dayaca kaaga dhinto ama baraag ama gurigaaga dhexdiisa dhibaata ku haleesho. marka waxaa dhacday hooyo waxaan ku iri hooyo saas marun baa sheekadaasi marun baa haayo hooyo anigu mar walba waan u tacsiidaya waan wacaa laakiin markay codkayga maqasho telefoonka way igu dhigtaa waxaan sameeya garan maayo. hooyo waxay ku tiri wanaadaya ha aadin baan ku iri hooyo halkaa uga tacsiyaday waajibkaaga waad gudatay ha aadin. waxaa dhacday markaa habeen walaashay wiil walaalkaya wiilkan weyn mooyaane wiilka yar ayaa guursaday anagoo arooska joogna aniga odaygayga wiilkayga walaalkayga weyn waxay faamilkayga oo dhan anagoo arooska joogna ayaa naloo soo sheegay gabadheedii la guursaday guriga deganayd intay foolatay isku dhimatay anagoo arooska joogna. subxaanallah walmaasha والبرهان خاص مصيبة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله وشكوين كي أنت شكل لقي سنة وقت كيف بكمة الشكل قصته عاو شكوين كجرون نسوي هذين عاو شكوين كوا هذين فهذا محتاج لما شكو أنا استو سو كله هدا إذا له هوس شوكته لكن عاو شكلني أدو أردت هاي أنا وأروسك جوجنو لسك إياريو ويلك على أروسيو أنا أروسك إسك جوجنو halkaa maad aragtay faamiligi oo dhan aniga ninkaygii la joogo halkan inankaygi yaraa gacanta kama sii daayo halkaas isagaa haya markastoon hawl qabanayo adeerkiiba haya. marka ayna lagu yiri gabadhii u hadhayna way ka dhimatay walaalkiiba markaa aniga isoo sheegay walaalkay laakiin kama naxo dhibtiisa ay kusoo dhaweeyo wuxuu igu yiri waxaan kuu sheegayaa gabadhii u hadhayna inay caawa ka dhimatay. markaasaan ku maxaa dhintay kasoo yidhi habreer gabadheedii oo hadhay keligeed ahayd way ka dhimantay caawa sidaasee gobna ku fadhida gurigeedii. waa naxay markaa hooyan waa shan caruura bal nafsigii daawo waa labadii balka dib dhacay waa kii taariibay waa kii la dilay waa gabadha umul aroortay waa shan wey waa shan guri buuxa hay la xawla walaa quwwata illa billah hay markaa waxaa dhacday ninkay wuxuu yidhi meesha nasiibaa ka socota waxaan rabaa inaan xagga ku kahaysto meesha anigu joogo Maraykan ka waran dacwadda hooyo reerka wuxuu u sheegay xaaskaaga iyo reerkaaga adaa mas-uulka meel aliya meeshaad adigu geysanayso baa lagu yidhi adaa mas-uuliyaddeeda leh anagu inaanu ku ducayno aan kugu taageerno mooyaane. markaa uur baan leeyahay uur yar baan markaa leeyahay dacwaddii buu noo bilaabay ilaahay wuu noo fududeeyey uurkii addis ababaan ku dhalay aniga wiilkaygiiba dacwaddii iyo wiilkii kale dhashay hal mar baan baxnay Maraykan baan tagnay. war maasha allah dhaha farxi wabaasti ilaa hadda wanaagsan yaa waa hooyaroo dhala maana dhalay markaa waxaa dhacday halkii haddaan joogno anigii Maraykan 5 caruuraan ku dhalay labadaydii aan Afrika markaa kala imaaday kusoo dhalay iyo 3 kale wiilkaygii wiil weyn buu noqday cabdiqaadir oo wiilkii ay diiday ee wacalka ku sheegtay ayaa biila maanta oo nin weyna maamadaasi dib umay dhalin wiilkii ay wacalka ku sheegtay wax walba waa uga sheekeeyey wiilkaygu 17 sano ka hor bay arrintani dhacday. wiilkii maanta waa qaangaan ayaydii isagaa biila guriguu u dhisay magaaladii buu
kasoo kaxeeyey carruurteedu kaga madheen dhakhtar buu intaa geeyaa marba meesha dhakhtar fiican ay ku tahay buu geeyaa ilaahay wiil baariya oo wanaagsan wiilkeed afirtay ayaa buu uga dhigay ehelna maanta isagaa u ah